faahfaahin dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan fariin ka nixisay hogaamiyaha Somaliland oo hordhigay safiirka boqortooyada Ingiriiska ku fadhiya Soomaaliya oo shalay booqasho ku tagay magaalada Hargeysa xarunta maamulkaasi. qoraal kooban oo lagu daabacay barta rasmiga ah ee safaaradda UK ee Muqdisho ayaa lagu sheegay inay lama taabtaan tahay ilaalinta midnimada Jamhuuriyadda Soomaaliya. Ambassadorka ayaa tilmaamay in Muuse Biixi isla soo qaadeen arrimaha gobolka ka taagan iyadoo meel sare ay marayso khilaafka dowladda federaalka iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiskii bilowgii sanadkan ay kala saxideen Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed. warar aan helnay ayaa xaqiijinaya in safiirka UK ee Soomaaliya oo Muuse Biixi kala dooday cawaaqibka ka dhalan kara heshiiskaasi sharci darrada ahaa. safiirka dowladda UK u fadhiya Soomaaliya ayaa u sheegay Muuse Biixi in heshiiskaas uu baalmarsan yahay qaanuunka caalamiga ah kan gobolka sidaas darteedna xadgudub uu ku yahay Jamhuuriyadda Soomaaliya, isagoona si cad ugu sheegay in dowladda UK aysan taageeri doonin wax kasta oo xadgudub ku ah midnimada Soomaaliya. Tallaabadan ayaa ku biiraysa dharbaaxooyin dhowr oo hore ugu dhacay meel marka heshiisku sheegay Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Itoobiya ay kala saxiixdeen. dowladda UK ayaa hore mowqifkeeda u cadeysay qoraal ay ka soo saartay heshiiskaasi sharci darrada ahaa iyadoo taageertay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya. heshiiska Abiy iyo Biixi ayaa Itoobiya oggolaanaya in gobolada waqooyi ee Soomaaliya ka kiraysato dhul badeed dhan 20 kiiloomitir gaar ahaan aaga xeebta Seylac si ay uga samaysato saldhig ciidan iyo dekad. kadib heshiiskii Muuse Biixi la galay maamulka Somaliland waxaa ku sii kordhayay cadaadisyada uga imaanaya beesha caalamka oo si weyn u taageertay dowladda federaalka Soomaaliya. dowladda UK ayaa la aaminsan yahay inay tahay tan ugu dhow ee maamulka Somaliland, waxaana warkan ka soo baxay safiirkooda oo quus gelinaya meel marka heshiiskaasi. dhanka kalena madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa la filayaa saacadaha soo aadan inuu ku dhawaaqo go'aan si weyn u sii niyadjabi kara xukuumadda Addis Ababa. madaxweynaha Jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Antalya ee dalka Turkiga iyadoo halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay. madaxweynaha ayaa ka qayb galaya madasha dimuqraadiyadda ee Antalya halkaas oo la sheegay inuu khudbad ka jeedi doono taas oo kaga hadli doono arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda dalka iyo iskaashiga military oo ay galeen Soomaaliya iyo Turkiga. sidoo kale madaxweynaha ayaa kulamo muhiim la yeelan doona hoggaanka dalka Turkiga ugu horeeyo madaxweynaha waddankaasi iyagoo ka wada hadli doona dhamaystirka heshiiskii difaaca ee labada dal. madaxweyne Xasan Sheekh oo durba bilaabay kulamada uu la qaadanayo mas'uuliyiinta Turkiga ayaa wararka ka soo baxaya waxay sheegayaan in isaga iyo madaxweynaha Turkigu ay shir jaraa'id qaban doonaan isla markaana halkaasi Rajab Tayyip Erdogan oo kaga dhawaaqi doono go'aan niyad jab ku sii ridaya dowladda Itoobiya oo soo damaacisay badda Soomaaliya maadaama Soomaaliya heshiis amni oo dhanka badda ku saabsan ay la gashay xukuumadda Ankara. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskii Addis Ababa iyo Hargeysa kadib waxa uu si weyn Abiy Ahmed uga dagaalamay dhinaca diblomaasiyadda isagoo heshiisyo caalami ah la galay dowlado waaweyn oo Turkiga ugu horeeyo isla markaana kala heshiiyay inay difaacaan biyaha Soomaaliya. waagaag wararka arrimaha Soomaaliya ayaa la socota. faahfaahin dheeraad ayaa waxaa laga helayaa horjoogayaal iyo askar badan oo shabaab looga laayay duqeyn xoogan oo lagula beegsaday gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. howlgal qorsheysan oo ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya saaxiibada caalamiga ay ka fuliyeen gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Caliyabaal meel 2 kiiloomitir dhanka galbeed kaga beegan ayaa la soo warinayaa khasaare xoogan kooxda shabaab in lagu gaarsiiyay. war ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa waxa lagu sheegay in howlgalka lagu dilay in ka badan 15 shabaab oo saraakiil ay ku jiraan sidoo kalena 22 kale lagu dhaawacay. dowladda ayaa sheegtay in goobta duqeynta laga fuliyay shabaab ay u ahayd saldhig ay ku aruuriyaan xubnahooda u dagaalama kuwaas oo loo yaqaan jabhadda. laamaha amniga dowladda federaalku waxay kaloo sheegeen in duqeynta lagu burburiyay saanad ciidan oo ay lahaayeen maleeshiyaadka kooxda shabaab isla markaana howlgalladu ay noqon doonaan kuwa sii socda. muddooyinkii dambe dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa saaxiibadeeda caalamiga ah ayaa kordhisay duqeymaha ay la beegsanayso goobaha ay ku aruursan yihiin kooxda shabaab, waxaana la sheegay in maleeshiyaadka shabaab si weyn uga baqaan ama uga cabsadaan duqeymaha dhinaca cirka ah
iyagoo inta badan ku dhuumalaysta goobo howda oo isleeyihiin waad uga badbaadi kartaan duqeymaha isdaba jooga noqday. dowladda Soomaaliya oo hadda heshiis militari la gashay Turkiga ayaa la rajaynayaa inay sii kordhiso beegsiga ay ku bartilmaameedsanayso goobaha ay ku sugan yihiin maleeshiyaadkii horjoogayaasha kooxdaasi.